filimku wuxuu ku bilaabmayaa sarkaal boolis oo lagu magacaabo Green oo loo xilsaaray inuu lacag u geeyo Balam, maxbuus caan ah oo huy fiican iyo ilaalo gaar leh. Balam waa maandooriye kaasoo awood u leh inuu maareeyo ganacsigiisa oo xakameeyo ganacsiga daroogada intuu xabsiga ku jiro, gudaha iyo dibadda xabsigaba. Waxaa kale oo uu leeyahay shirkad ka shaqeysa ka ganacsiga dadka iyo iibinta daroogooyinka iyo hubka. Wuxuu doortay in lagu sii hayo xabsiga sababtoo ah cadowgiisu halkaas kuma waxyeeleyn karaan isaga. Way fududahay in la arko sababta gacan ku dhiiglayaal badan loogu soo diray inay dilaan isaga, maadaama madaxiisa la saaray qiimo dhan $1 milyan. Taas beddelkeeda maxaabiista imanaysa ee lagu sii hayn doono xabsiga Balam waxaa la tusayaa qolalka ay ku kala qoran yihiin. Meel kale, sarkaal Green ayaa ka hor yimid maxbuus magaciisa lagu sheegay Jack Stone, sarkaal ka tirsan booliska, taasoo saameysay sarkaal Green. Aad buu u xanaaqay oo caloosha kaga dhuftay Jack. nin walba qolkiisa ayaa loo tilmaamayaa, balse Jack arrinta uu halkan u yimid waa in uu ninkan gangsterka ah dilo ee Balam lagu magacaabo. Jack qorshihiisa dagaal ayuu bilaabayaa kadib uu garaacaya dhammaan. Toddobaad ka hor, Jack iyo labadiisa saaxiib waxa ay dhaceen bangi si ay u helaan cadeymo dheeraad ah oo ay isticmaali karaan si ay u soo bandhigaan falalka xukunka taagga iyo musuqmaasuqa ee saraakiisha dowladda. oo dhimanaya ninkan sababta uu Jack u dilayna waxa weeyaan xaaskiisa ayuu ka dilay ninkan. kadib Jack ayaa dib ugu soo laabanaya xabsiga. Jack saaxiibkiisa oo loo keenayo isagoo ku sugaya qolka qadada ayuu midkan isku taagaya uuna dilayaa Jack dhammaantooda, Williamna uu caawinaya. Jack oo fariin u dirsanaya suxuufiyadda lagu magacaabo Trisha, isla markaasna muhiimadiisu waxa weeyaan inuu ninkan faldambiyeed ku soo oogo isla markaana uu dilo ama uu loo dhameeyo. waxay diyaarinaysaa faldambiyeedka lagu soo oogi lahaa ninkan lagu magacaabo Balam. waxay la tashanaysaa qaar ka mid ah maxaabiista ka shaqeysa xabsiga. Trisha hawsheeda ayay ilaa hadda ku guda jirtaa. markana waxaa taleefan u diraysaa qaar joogo Johannesburg, waxayna u sheegaysaa inay garab siiyaan. waxay u baahanaysaa la kulanka Jack si ay ula wadaagto macluumaad. markan xabsiga ay timid oo ay sheekadeedii wado, William oo dhacdhacaya ayaa soo baxaya. halkan kale waxaynu aragnaa gabdho istagaalaya oo xabsi ku jiro. marka la kala qabtana waxaa soo galaya ninkii lagu magacaabi jiray Balam oo gangster ah. Balam ayaa markaa qabtay tartan ku guuleystay oo heli doono $100,000 haddii ay dilaan Jack Stone oo ay harkeenaan madaxa ninka. taas kadib yahay qolkiisa waxa uu furay dhammaan albaabada xabsiga isaga oo sababay qalalaasi gudaha xarunta oo dhan. khilaaf ba'an ayaa ka dhashay maxaabiisyadii oo ku haystay si ay ugu wareegaan shaqaalaha amniga. gaalkoodii Jack waxaa caloosha lagaga dhuftay mindi uu Simeon ku guuleystay inuu hadda oo la rabo in la soo saaro Balam xukun si loogu qaado sababtoo ah Trisha ayaa maxkamadda dambi ku soo oogtay oo ay cadeymo keentay. ma rabo Jack in la soo saaro waayo wuxuu rabaa inuu isagu dilo. kadib William ayuu u dirayaa CC cameraga ayuu jarayaa meeshana leerka waxay galeen dagaal gacan ka hadal ah. markii Jack uu itaal darnaaday, ninku waxa uu xasuustaa xaaskii ka dhimatay, taasoo ogolaatay inuu ka adkaado Balam oo ka argoosto. saaxiibayaal, filimkeena maanta halkaas ayuu noogu egyahay. haddaad nagu cusub tahay subscribe noo taabo, haddii kana like noo taabo. waad ku mahadsantihiin dhammaantiin.